waxaan rajaynayaa ardayda reer Salaxley inay guul ka gaadhaan inay Ilaahay u sakhiro waxaan ardayda Ilaahay uga rajaynayaa inay imtixaanka guul ka keenaan waxaan halka baa ka diray ardaydu inay iska dhaafaan qishka iyo waxyaabaha xun dhammaantood waxaan rajaynaynaa khayr waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay ka dhigo ku imtixaanka ku guuleysta kulli maanta waxa soo keenay waxa weeyaan imtixaankii shahaadiga ahaa halkan ay joognaa waxa weeyaan dugsigii sare alxamdulillaah rabbil caalamiin ardaydu waxay u fadhiisatay imtixaanaadkii waxaan rajaynayaa ardayda reer Salaxley inay guul ka gaadhaan inay Ilaahay u sakhiro ardayda dalka oo dhan iyagana waan u ducaynayaa wasaaradda iyo xukuumadda soo diyaarisay iyo xukuumadda dalkana waxaan leeyahay Ilaahay idinka ajar siiyo dadaalka samayseen xilligeedii buu ku qabsoomay iyadoo shalayta ay ahayd maalintii qarannimada 26 Juun aynu calanka qaadanay 1960kii ee dalkani uu noqday dalka uu xorriyadnimada siiyay gumaystihii Ingiriisku maalin qaali ah ay shalay 26kii baa maanta 27kii wax loo fadhiisanaya iyada lafteeda waa maalin qaran oo dalka oo dhan waxa looga fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa runtii waan u ducaynayaa ardayda dhammaanteed meel kasta ay joogto degmo kasta iyo gobol kasta iyo tuulo kasta meel walba ku galeysaba maanta ay bishii tahay 27kii bishii 6aad waxa degmada Salaxley iyo dalka oo dhan ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare waxaan ardayda Ilaahay uga rajaynayaa inay imtixaanka guul ka keenaan waxaan halka baa ka diray ardaydu inay iska dhaafaan qishka iyo waxyaabaha xun oo ay ku kalsoonaadaan naftooda imtixaankana u galaan si habsamiya oo aanay imtixaankooda dhaawicin aanay wax rabshada aanay samaynin lafoodana ay ku kalsoonaadaan marka ugu horreysay Ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo maamulka iyo macallimiinta iskuulada dalka oo dhan guud ahaan gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa iskuulada dugsiga sare iyo dugsiga hoose maamulkooda iyo macallimiintooda degmada Salaxley marka labaad waxaan u ducaynayaa dhammaan ardayda dalka oo dhan imtixaanaad ku galaysa dugsiyada sare iyo dugsiyada hooseba dhammaantood waxaan leeyahay insha Allah guul baan idin rajaynaynaa si guud gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa haddaan nahay maamulka degmada Salaxley ardayda ka baxaysa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare ee degmada Salaxley kuwaasoo hadda maanta oo taariikhdu tahay 27kii bishii 6aad 2026 u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare dhammaantood waxaan rajaynaynaa khayr waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay ka dhigo ku imtixaanka ku guuleysta waxa dugsiga sare ee degmada Salaxley iyo guud ahaan Somaliland si toos ah uga bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe fasalka 8aad goobtan aynu imika joognaa waxa weeye waa dugsiga sare ee degmada Salaxley ardaydu si fiican bay imtixaankii u fadhiyaan imtixaankii mar dhaweyd buu bilaabmay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxay galayaan maadadii ugu horeysay oo ah tarbiyatul islaamiya ama maadadii tarbiyada kolkaas imtixaankuna si fiican oo mafsuud ayuu ku bilaabmay kolka khayr baan insha Allah ardaydana dhamaantood u rajaynayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha 6aad 2026 waxaa si habsami ah uga furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2025 ilaa 2026 dugsiga hoose dhexe ee degmada Salaxley insha Allah ardayda dalka oo dhan waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan ardayda dugsigana inay guuleystaan kullay muddo ardaydu wax soo dhiganaysay waxa ay soo dhigteen baa imtixaanka laga qaadayaa meel walba ardaygu joogo waxa wanaagsan marka hore dadaalka uu sameeyo dadaalka intuu geliyo aqoon intuu geliyo wax akhriyo intuu wax qaybo ayuu ardaygu hadhow toolanaya yaqaana qofka dhakhtarka intuu soo bartay buu wax daweeyaa qofka injineerka intuu soo bartay buu wax dhisaa marka ardayda waxaan kula iyaga u jeedinayaa inay imtixaanka uu qof walba wixii uu soo akhriyay uu kaga shaqeeyo laakiin wax qishku wax faa'iido u leeyahay iyo meel uu cid geeyaa ma jirto saa ogeed marka ardaydu waxay dadaalaan mar walba faraya meel kasta joogaan dhammaan ardayda Soomaaliland guul baan u rajaynayaa insha Allah